آخر حكينا حتى أيام كنتكو من أي أعلان أيام اللعية هاي دولتي محل يسو وحوم إفتيمين يسو دتك كان وحلو شيء غير معنا. والله أرجع أقول لك آد أسلوه ها بسم الله الرحمن الرحيم هو waxaan hubaa hadalkaagan su-aashaada aad weydiisay waa weeye daahiro xagee baad naga xigtaa mucaarad baa tahay muxaafid baa tahay sidaasna waa kay anigu macnaheedu waa akhri xagee baad naga xigtaa ninka odayga ah heesta uu sameeyey aniga halka aad iga raadinayso waa halka aan hadda kaala hadlayo waxay ka dhigan tahay sidee bay wax noo yihiin maxaad u aragtaa dowladdii hore meesha way ka baxday dowlad cusub baa timi farmaajo meesha ka baxay xasan sheekh baa yimi halkaas uga jeedaa bay ila tahay saaxiibkay aad u qaaliyo anigu sideedaba dhaqan ahaan dadka soomaalida aan runta jeclay laakiin meesha layga helaahay maaha qof jacayl waxaa layga helaa shaqo jacayl iyo shaqo nacayb nin baanu hal u dhiibanay maandeeq la yidhahdo wuxuu idinku yidhi war dhaq dayrta dambena waxaa lagaa rabaa iyadoo dhashay barwaaqo daaqday qurxoon oo midabkeeda iyo dhinac walba ka qurxoon oo aan tacbaan ahayn qofkaasi waxay ka dhigan tahay marka anu marka waxaan hashaasaan wax ku leeyahay afarteeda naas bay tahay baan doonaya inaan naas maalo waxaan kasoo jeeda dad baa mushtara oo dowlad ku nool ah oo magaal ah baan kasoo jeeda ganacsi qoys waxaan kasoo jeeda qoys ganacsi marka qubqac waxa kuma lihi iyo waalin waxba kuma lihi waxaan wax ku leeyahay nabad dowladnimo horumar iyo inaan ganacsan karo dadkuna ay helaan shacabku ay helaan waxa dowladda ay bixiso oo ah waxa la adeega bulshada anigu waxaan taageeraya ogeyd hawadii lasoo xoreeyey ciidamadii la dhisayey haddii alla qadarkeeda leeyahay dayntii nagala cafinayay safaaraddii ayna washington d c ka iibsanaynay oo anigu aanan hore u arag waayadan 30 sano ugu dambeeyey waxaan taageerayay isbartiibadii galabtii ugu horeysay ee la furay Chinaha iyo Soomaaliya ay ku ciyaarayeen friiga ku galay cabdiqaasim salaad xasan khudbadii ugu horeysay oo ka jeeday ilaahay ha xafidiyo oo wasiirka isboortiga xilligaa u ahaa waxaan taageerayay tiyaatarkii aan geli jiray oo aan lacag ku jiray maadaama aan jarahay inuu guriga uusan iga xigay inta laxanka wax la saarayo ama la xafidsiinayo fanaaniinta la xafidsiinayo laxanka iyo muusigaystaha maaragtay la isxafidsiinayo ama qofka qaadaya xataa la xafidsiinayo aan ku geli jiray freega dib u dhiskiisii waxaan taageerayay villa Soomaaliya oo dhar ku warnaa iyo hadda say u taabo sida loo dhisay oo ajaaha ummadayda laga arki karo haddii markaa waxaan diiday markaa taas waxaa ka dhiganta samadaynu aadnay bay ka dhiganta waxaan diiday markii la sagxadaynu jiifnaa baylamka maqlaysa soo kamaad maqlay oo yidhi sagxadaynu jiifnaa 193 milyan oo waxaan galnay dayn ah khayraad raacday baa laleeyahay khayra maxaan u raaci waayo haddaynu dayn gelayno ilaa daynta maynu kasii baxaynay haddaynu dayn gelayno maxaan khayra u raaci waayo waan raacaya iyagu marka balaayaa marka jirta inaad aan ku warramay inaan su-aal waxaan meel ka hadso dadka Soomaalida waxaan ku qiyaasay qof baa xanuunsan qandho waxaa haysa karkar ah dhidid baa ka da-aya uu ku imanaya marka wuxuu soo qadanaya bahalka dhagaha la gashada maaragtay oo dhaqaatiirta markaasuu ku leeyahay riyo maxaa xanuun ku haya war maxaa ku haya qandhada ku haysa markaasuu leeyahay war aniga maaha qofka qandhada haysa waa adiga bahalkan aad ila soo socoto iska daya adigu issaar markaasuu ku leeyahay may isagu qandhadii haysay buu adiga kaa dhex eegaya Soomaalida qandhadii isaga haysay buu adiga kaa baaraya war aniga maaha qofka dhididaya war qofka qandhada haysa asiga riman qabyaalada isaga haysa adigu kaa dhex baaraya waxaan marka dadka Soomaalida marka ugu dambeysay waxaan yiri war walaalayaal saxara idinku aad barkataan uf lama yiraahdo adaa barkanay madaxaaga ka qaado waa siday tahay
وفهدين واحد هو بركنتها marka qofku waa run anigu abuur jeemihi Soomaali baan ahay qabiil waan noqon karaa ayagu ma aha because dadka Soomaaliyeed oo dhan baasina aan dadka ka dhashay baasina anigu abuur jiray kale maan jarmal mimi Soomaaliyeed laakiin waxaa kala saaran saddex waxaa kala saaran qabiilka Soomaalinimada qabiilkan waa naga waqan hawiyana inuu waa meel waa ma tartan oo lagu ma gafi karo dadna kuma gafi karaan waa cishanayo gafka ku raaci maayo Soomaali baan ahay oo aniga iyo adiga oo nin carab saalaha na lama kala dhex geli karo oo Soomaaliniman ka mid aysan oo la yaba taaban kara idan xaq waan u leeyahay Soomaalinimadeeda ilaasho saddex dal baan leeyahay oo dalkaygu waa Soomaaliya oo asaguna waa iiga saaran oo wax waa iiga saaran dowladnimadaydu waa tan afraad afartaasba mid waliba meeshooda igu ilaashantay xaq waana dowlad qabiil waayo marka koowaad qabiilka inaan hawiye ahay qofna iima diidi karo dadkii oo dhan dhaqankooda sida yihiin inaan mursada ka sii dhaqankiyaa sida oo hawiyuusu u joogo waa kala baxaya markaas iyagu istuuriyanaya qof haddii ay jirto dad aan dhaqankaa lahayn oo haygu caayeen laakiin dhaqan meesha yaallo oo dadku ay isku raacsan yihiin oo dadku wada yihiin dad dhaqanka inaan ka baxo waxa kama bixi karo taas waa intaa inaadeen waxaan ku soo horay su-aasha markay kusoo noqoto maxaa imika kuu muuqdo maxaa imika kuu muuqdo waliyow anigu wixii shalay aan taageeray oo kaleeto oo ahaa waxqabad haddii aan arkin halkaasaan kaa xigaa waa taageeraya haddii aan waa meeshii aan ilaashanayo waa dowladnimadii dadka waxaan kule qabiilkayga waa ilaashanaya oo Soomaalinimadeeda waa ilaashanaya oo dalkayga Soomaalida waa ilaashanaya oo dowladnimadeyda waa ilaashanaya dowladnimaduna ma aha inuu qof leeyahay ama qabiil leeyahay hawiye la yidhahdo ama Xasan Sheekh leeyahay qofa ma aha amaanan u dhiibtay Xasan Sheekh farmaajan shalay u dhiibtay farmaajo aakhirkii inuu ku danaysto damcay waa taad ogeyd ilaahay hadan ka cabsan labadii sano ugu dambaysay farmaajo wuxuu u sameynaya absolutely qof caqli leh ama diin leh ama dhaqan leh ama miyir leh uma adkaysan kara oo iska doonahaya doorashadii qof iyo codka ahaydoo uu yiri daniya soo xariiqay sida taa dan madaxweyne loo yahay hooyo haddana adigu ma dhasheen ifkayba ma joognin xasan farmaajo jaadkii u xiray ma aqbalo ما بلدهم haddana Xasan Sheekh Maxamuud hadduu dariiqa asaga hamro aan ku aqoonay ka dhiso ka dherig meelna wax ka dhiga hagbadleyda la dhihi jiray nimanka la dhihi jiray magacooda ii sheeg abakaarti abaraha soo marnay labadii afartii sano hore wixii ku soo dhaqmay afartan sano kama aqbalayo malaha waa ii amaana hay'ad Soomaaliya waxaan farmaajo ka diiday wuxuu qabiil ma waa dowladii marka waxa hawiye isku celceshanayo oo hawiye leeyahay oo hebel loo daayay oran karo ama uu Xasan Sheekh Maxamuud iyo afarta ku hareeraysan oo leeyihiin oo tareenka la saaray ma aha waa wax ay wada leenahay amaana ku dhibanay amaanadaas waxa laga rabaa ma aha qabiil wax qaybsanay ma aha lama yiraahdo firi way ku yimaadeen oo qabaa'ilka forbay oo qaab darra aynu ku nahay laakiin waxa maxay yiraahdaa waa dowlad Soomaaliyeed waa waxa ii xeeran ee iga baxsan firi dalka dowladda dadka qabiilkayga waa kala saaran yihiin mid hormaraysan ma jiro dowladda iyo qabiil isma tuso oo isma gaar oo dab iyo gaas inta wax kuma qurxin karo dalka waxaan u baahanahay dowlad kaabi karta oo waxtar u leh Soomaaliya marka maxay tahay hadalkayga waxaan ugu soo socdaa daqiiqadaha waxay ila tahay 8 kalo daqiiqo noo dhimaado wax ugu weydiin kartaa ama waa 8 daqiiqo inta YouTube-ka ugu habboona waxa la yahay waxaan rabaa marka inaan ku soo xiro oo aan ku soo gabagabay Rio sida hadda aan arkay Chad baa waxaa loo xiray Cabdullaahi Maxamed Nuur waxaan taaganahay waa la taageero dowladda هلا تاجر الدولة لكن هذا تاجر الدولة معناه ما كان يسوق كدرج مالنا وحكي إنه تاجر ما أفر سنة حس الشيء من المصامر أفر تاس الحكومة إنهم قاعدين أفر تام هاد الجيران وحنكرنا أفر تاس أفر رجول له أو وحنا وقفته أفر كفيع أو كفيع عن أو يسوق قريه أو دولة لماذا قريه أو ضدك يدرك أو ضنقه oo taariikhdiisu oo nasiib buu leeyahay oo afartaas oo eedaysna afar oo ka martay iskaga mayro uga soo xajiyo hadda waa ku soo xajiyo soo damiisa lama soo wax ma shaqo baxan afar sano ma haysano
afartan sano inuu noo qurxiyaan ka rabnaa marka tiiloo kale kama rabno bulaacad ku biiri ma rabnaa waxaan rabnaa dhiiqo biyo daahira kuma yar waaya daahir su-aalo yaryar baan kaa weydiinaynaa dowladda xasan sheekh hadda safaro badan bay gashay maantana wuxuu dadku ay hadallo isla dhex marayaan wixii soo dhawaaqay Tanzania maxaa dowladda loo dhisi laayahay waa mahadsantahay niyow waa run waa su-aal dadka aada ugu soo noqonaysa waa su-aal la isweydiiyo aada la isu weydiinayo waxaana isleeyahay horta waa wax ilaa imanka aan qaadi karno oo aan culays aada u badnayn waxaa kaloo garan karaa culaysyo badan baa jira 4.5 wax ku qaybsanay 4.5 ku waa dhibaato na dhex taalo waa waxaan shalayba isku sidaan isu dilayo oo waxaan isku bar marka ayaan daran ugu dhacdayo waxaan nagula yiri waxaan loo soo dhiibay maxaan idhaahdaa qori dab leh oo dhinac masaar dab laga soo saray baa gacanta naloo geliyo dowlad noogala dhigay oo macnaheedu yahay kow sidaad isu disheen wax qaybsado qabyaaladii ku dhaqma oo qodob maamul dowladeedii oo soo koobaya aadama koobaya dowladnimadeeni waxaa laga dhigay maamul qabiileedyo baan isu sheegi marka waxaan u xayiranahay waa qabiiladii miyaan u xayiranahay qabiiladii baynu xayiranaho qabiil walba la rabaa in la qanciyo oo wuxuu ku qancaa taasaan isleeyahay taasay ku baada waaya aada iyo aada su-aashaadii waan weli daba taagana qabiiladii waa in la qanciyaa tilmaamay daahir hadda qabiiladii in la qanciyo oo wax la kala hufo oo dowladii la dhiso oo qodobada loo aasamiyaa la sameynaa mise safaraan karnaa waa mahadsanta absolutely horta waxaan isleeyahay isma mooga madaxweynaha isma mooga madaxweynaha iyo ra-iisul isma moogo telefoonna horta u dhexeeya sida aan isleeyahay waxaan daahiyay dhinacaas yihiin baan anigu u haystaa laakiin waxaa loo baahan yahay anuu xalaytan ka hadlay waxaan idhi xasan sheekhow kadabshiiradii shalay kadabshiirra waxaan u bixiyay horta kadabshiir baan helaa mataqaanaa saangurta baan u ego kadabshiir la yidhahdo dudumada gaa oo hagbadleey oo abakaar ah oo qandaraasya rabta oo tuuga ah oo kuwii 4 sano ah noo keeni ogaaw marka kadabshiirku dudumo kala dowladnimadeenu dudumo maaha waxaan kala ka rabnaa inaad noo keento dad waxqabad leh macno leh dembiyadii hore kuwa galaya tuugta ahaan ahayn waaya su-aashaydii mar walba waxaan rabaa inaad soo koobtid madaxweyne xasan sheekh oo maqan prime ministerka dowladii ma magacaabi karaa si dhaqanka cadiga maya waa inuu noo joogaa marka madaxweyne horta isla ogeyn firi inuu joogo iyo inuusan joogin way kala duwanta ra-iisul wasaaraha madaxweyne ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu baarlamaanka mategi karo idan madaxweynuhu joogo laakiin ra-iisul wasaaruhu xukuumadda waa horgeyn karayaa waana soo dhisi karayaa baarlamaankana waa horgeyn laakiin madaxweynaha waa inuu noo joogaa waa siday ku qoran badan laakiin kuma xirna sharciyan kuma xirna baarlamaanka ninka baarlamaanka keenaya waa ra-iisul wasaare waxaa leedahay marka xamsa iskale waliba dayaanaa xataa degdeg ku eedaynin sidaan qabo sababtoo ah eeda ka badan buu nooga baxsanaya haddii midida aan la afaynin ogta waa af meeshaa haddaynu sidan ugu degdegno eedayntooda aan intan ka bilowno anigu waxaan ka baqayaa inaynu noqono kuwii shalayba sii diidanaa marka waxaa lay aan cag dhigno aan sugno isagoona dowladdana ha la soo dhiso dalkan iyo dadkani dowlad waxqabatay u baahan yihiin waana cakiran tahay muqdisho waxa ka dhacaya waad aragtaan booliiska wuxuu samaynaya waad aragtaan dilalka ka dhacaya qorshaysa waad aragtaan haddii lay kuu roonyahay waxa ka socda muqdisho dowlad la-aan looma sii ahaan karo waa wax aan la qaadan karin iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan abaaraha iyo hoogga waxaa rabaa dowlad maaraysa marka waa inay dedejiyaan si dalkan wax loogu qabto waaya daahir dowladda meeqa bilood bilisada dowladdu taa iminka waxaan malaynayaa waa 2 bilood iyo xoogaa soo ma 2 bilood 3 bilood bay ku socotaa dee dowladdii weli qabyaa ku jirta marka qabyada sidee uga bixi karnaa haddana safar kala madaxweynaha oo si diyaarsan oo Egypt warar la isla dhex maraayo kii Maraykanka safaradii way sii socdaan marka sidee loo soo gabagabo waxaan aaminsanahay haddii ra'yigayga uu shaqaynayo in bal safarka dibna loo kugu dhigo oo dowladiina loo dhiso udubadana loo kugu aaso because hadda xaafad kasta dagaal baa ka taagan taliye kasta loo yeero dowladdu waxay rabtaa jiljilac ma rabto hadal adag
iyo waxay rabtaa dowladnimo iyo soomaalinimay rabtaa marka dilkii baa batay askartii miyaa wax samaynaysa ma mucaarad baa samaynaya waxaan loo kala garanaynin marka waxaan ka waran bal xaaladahaas taagan rio socdaal waxaan isleeyahay horta waxaan wadalkeena waa inaan ka run sheegnaa waa run in maaragtay isha xasan sheekh uu joogo la dhiso maaragtay dowladnimadii hawsha la fuliyo ay dowladda waa wax qurux badan laakiin mid ayna ilaawo runtana aan ka sheegno maadaama waxaan ay yihiin arrin inaan isla xisaabtano taageeradeena iyo caqligeena iyo aragtideena aan waaqica ku dhisno runna ka sheegno taas waxaan leeyahay nin labadii sane ugu dambaysay ayaa waxaa siyaasadda arrimaha guduhu waa muhiim labadii sane ugu dambaysay waa soo aad u soo koobay ayaan waxaan galnay baaba oo nagala sabray adduunkii baa naga sii jeestay labadii sano in laga daba tago marka labadii sano ayaa gaabna galay ayaa gaab maaha adduunkii baa nanacay because waxaan noqonay dad aan heshiis u muuqan saddexdii sano hore sida cajaa'ib u ahay oo adduunku noo soo dhaweynayay labadii sane ugu dambaysay ayaa waxaa dhacay gaab baan galnay gaab maaha adduunkiina xoogaa yar baa dib u dhac baynu samaynay siyaasadii adduunkan naga qaribantay soo qab ma yeelana horta qab baynu yeelana soo waayahay qabkii waqtigaan aada loogu yar 18 waqtiga aada loogu yar marka waxaan kusoo koobaynaa hadalla laba su-aalo yar ah oo jawaab kooban ah in maxaa leedahay dowladdu sidee ayay dowladdu kusoo dhisi kartaa wasiiradii iyo dowladdii xasan iyo isagoo wada socda xamza waa maasanta horta dowladda cidda horta labadooda inay ka tashanayaan shakigama jiro